maxkamadda gobolka Gabiley faraceega degmada Togwa Jaale ayaa soo bandhigay shixnad khamriga oo kala duwan oo lagu qabtay dadka ganacsanaya degmada Togwa Jaale gudoomiyaha maxkamadda gobol degmada Gabiley Cabdikariin Cumar Cabdi oo halkaasi ugu horeynba hadal kooban ka jeediyay ayaa ka warbixiyay shixnada khamriga ay maanta gacanta ku dhigeen isagoo tilmaamay guud ahaanba ay xukunkooda dhamaysan doonaan dadka khamrigaasi lagu qabtay ugana digay dadka kale ee ka ganacsada khamriga geesta kalena Yaxya waadan xirilaaliyaha degmada Togwa Jaale oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa xeerka qaybta guud iyo ka waramay xeerarka ay xirnaanta qaranku u leedahay dambiilayaasha kala duwan ee la soo qabto gubayna khamriga tiradiisu dhantahay 721 litir kuwaas oo 216 kamid lagu xukumay 25 eedaysane halka 505 litirna ay ka yaaceen dadkii soo qaatay sidaa darteed waxaan mar labaad uga digayaa kuwa aan qabanay ka baxsadayna waxaan leenahay maruun baan gacantayda ku dhiganaa soo qaban ninka ka dhex bixi waaya kana fogaan waaya maandooriyaha ee nolol moodo inuu ka shaqeysto waxaan leenahay waxa ku horan xabsi waliba aan saamaxaad lahayn oo ciqaabta lagu xukumaad ku dhamaysanaysa jeelka kasto kaalmaysa ama u gargaarta oo gaadiida oo soo qaadan nin khamri sida isagana ciqaab la mid ah la marinaya bulshadana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan oo ibliiska mar walba la socodsiiyaan iyo laamaha amniga kale cidii ay ku arkaan khamriga maanta halkan waxaan isku nimi inagoo furiyayna qodob sharci oo ka mid ah xeerka mukhaadaraadka qodobkiisa afraad baragalabkiisa afraad in la burburiyo dhammaan khamrigii la qabtay waxa waajibinaya qodobka sharci halkan waxa yaala khamri dhan 721 litir waa 3 foosto iyo badh khamri gaadhiya khamriga dhammaan waxa lagu soo qabtay dad Soomaaliland darisa oo dadkeena ayaa lagu soo qabtay wixii ajaanibi way yarihiinba dhammaan dadka la xukumay waxa kamid ah 3 ajaanib 25 bay haayeen inta kiiskan loo xukumay 3 qof baa ajaanib ah dhammaan dadkaas way xukumay waxaani ku xukumayeen xukun u dhaxeeya 4 sano ilaa 6 bilood ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلهنا أبو ريب على كل إرادة رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أم الخبائث وحمانة أبيه دوي وحنادكم مع النقية عيدنك بوليس كتمرد السومالان كارهان قيبت وجهاله وآذو قول قشا قواشة مخادراتك وشعب وقرب شوغان ومخادرات كلا ديالا كيسة هاللقاها وقالوا maxkamad iyo xaraalihi boolis kaliyaati gudoomiyaha degmada Togwa Jaale mudane Xaashi Maxamuud Cabdi iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Togwa Jaale Cabdisalaan Cumar Caydiid diin qale ayaa iyaguna halkaasi hadal kooban ka jeediyay kuna tilmaamay maandooriyaha khamriga ay dagaal ba'an kula jiraan degmadaasi Togwa Jaale inta badan xuduudda labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya aanu daadinayna khamri dhan 721 litir khamrigaas oo barkii laga yaacay inta u badan aanu ku xukunay 25 maxbuus oo wax yar oo saldhiga ku jira mooyaan intii kala dhamaan ay ku jiraan xabsiga Gabiley maxaabiistaas oo xabsigooda u dhaxeeya 4 sano 3 sano iyo 6 bilood waa 4 sano ilaa 6 bilood inta u dhaxaysa ayaa maxaabiistana lagu kala xukumay waxayna soo galayaan intii leeyahay وأفر فوسطه وحير وخمرها وأم الخبائث حتى أنت هلق مكان أنا ما قبل إن وحكون تربانو صوته نيك جرى أنت صوت جرى كان صوت هذا يا أدلوا هيستبان قبل سيادة رادد وحن الدولة كعد سنة أرنتاسي إن حير كاسي لو حكومة يدي بلا يسكون نقضه إن أرن أذاك لقى صار ما كانوا يرتاح صوت السنة الله ينقف كعب ينا عقاب أذاك سنوا إنه هلو
ka baac mushtaraya waa inuu ciqaab adag helo gaadhiga wada waa inuu ciqaab adag helo booliiska soo qabanaya waa inuu dhiirigelin helo oo la siiyo premium waa Nimcaan Deeg Ibraahin iyo Mixiyadiin Maxamed Daahir TV qaranka Gabiley.